أري أروح نكيل باركي أروح نبض بالروا أروح حايسة واو kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada naga daawanaysa dunida dacaladeed meel kasto aad joogtaan halkani waa Maal TV aniguna waxaan ahay Maxamed Cawke oo idin daadihin doona barnaamij aan ugu wanqalay Cawke iyo caanka barnaamijkaas oo noogu martiya nin aad aad u dhageysanaysan oo bulshada oo ka caana codkiisa oo aan wali hore looga arag muuqaalkiisa ninkaas waa kuma waa Barkad kusoo dhawo Barkad waan maasantahay Maxamed Axmed Xasan Cawke waan ku dhawahay Maal TV iyo barnaamijka Cawke iyo qofka caanka ma sha Allah Barkad waxaan ku weydiin rabaa horta Barkad baan ku leeyahay magacaaga oo saddexan ayaan rabaa inaad bulshada aad u sheegto Barkad ayo magacaygu waa Barkad Saleebaan Ismaaciil Galaal loo garan og yahay in ragaxa Ismaaciil Galaal waan gartay Barkadow halkeed ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ma sha Allah halkeed wax ku baratay Burco halkeed ka soo boqoshay Burco halkeed ku sugan tahay hadda waxaan ku sugannahay xarunta dhexe Maal TV Hargeysa ma sha Allah ku soo dhaw wadaway waaye Barkado waxaan baradu bulshada oo in badan la isweydiinaya iyadoo muuqaalkaaga la arag dadku waxay islahan waliilkaasi uu farabadan yahay su'aalo ayaan doonayaa si kooban inaan ku weydiiyo Barkado waxaad iga jawaabtaa su'aasheeda koowaad aniga oo eegaya maxaa kugu dhaliyay in aad samayso tooshka siyaasadda waad maasantahay Maxamed Axmed Xasan Cawke barnaamijkan tooshka siyaasadda ama TSTV waxay ugu dhaliyay inaan sameeyo waxyaabo fara badan oo ay kamid yihiin inaan waxyaabo qarsoon dadka u sheego waliba ugu sheego si ay garanayaan gartay marka sababtaas ay ugu dhalisay inaan sameeyo tooshka siyaasadda waan gartay saameyn intee leeg ayaad kala kulantay barnaamijkan tooshka siyaasadda barnaamijka tooshka siyaasadda ha saameyn fara badan waan kala kulmay de kulay markuu qofku baraha bulshada ku jiro wax sheegayo wax qorayo saameyntiisu iska fara badnaanaysa Maxamed Xasan Saciid kow waan gartay marka saameyn waan kala kulmay ha saameyntaasi ma noo sii faahfaahin kartaa waxa ay yihiin oo dhowr qodob ma nooga taaban kartaa saameynta waliba saameynta waan wax badan waxaan kaga sheegi karaa tusaale ahaan saameyntan kala kulmay waxa kamid ah kulay qofku markuu baraha bulshada wax ku qoro wuxuu iska noqonayaa qof babulaara ama caana marka adigu dadka intay garanaysa markaan meelaha marayo war tooshkii siyaasadda wax ka daba yeedhaya qaar dadka ku hambalyeynaya qaar ka soo horjeestanaya qaar waxaan sheegayso qalad u arkayo ka xumaanaya marka saameyn fara badan kala kulmay waan gartay oo Barkadow barnaamijkan waxaad ugu magac dartay tooshka siyaasadda waxaana ku salaysay qabiil bal halka ma loo fasili kartaa sidaad ugu salaysay qabiil ahaan Maxamed Axmed Xasan Cawke waa maasantahay su'aashaas in badan baa la weydiiyay waa su'aal muhiim ah tooshka siyaasadda ayaan ugu magac daray barnaamijkan qabiil baan ku miisaamaa waa run qodobkaasi balse siyaasadda Soomaalida ayaa ku dhisan qabiil wasiirkii qabiil baa lagu soo magacaabaya xildhibaankii qabiil baa lagu soo dooranayaa qofka hadduu xataa aqoon leeyahay shirkadii qabiil baa lagu geynayaa haddaad bachelor iyo PhD seeso aan aqalkiinu ku wadin marka shirkadu ma shaqatay kartid marka siyaasadda Soomaalida ayaa ku dhisan waxa loo dhahay qabiilka madaxweynaha qaranka la oranaya war heer samatar wasiirkii baa la oranaya waa reer hebel marka siyaasadda Soomaalida ayaa ku dhisan qabiilkan marka sidaas uga jeedaa marka tooshka siyaasadda waa sida oo waxaad leedahay qabiilkii baa galay siyaasadii ha siyaasadina qabiil bay gashay baad uga jeedaa exactly okay marka waa Soomaalida iyo siyaasadeeda miyaan oran karnaa aad iyo aad waa saa ma kala maarmayaan siyaasadda iyo qabyaaladdu Soomaalida ama qabiilku waxa la yiraahdo waayahay marka waxaan ku weydiin rabaa su'aasheeda kale xigta muxuu yahay hadafka aad barnaamijka aad ka leedahay
hadafkan kala yahay barnaamijkan tooshka siyaasadda waan gartay walaal horta uu fara badan yahay laakiin ka ugu muhiimsan ee koowaad waa inaan kula dagaalamo wax qabyaaladda cunfiga ku dhisan waan gartay ama qabyaaladda naca iyo dadku inay kala fogaadaan iyo in dadku isu calool xumaadaan inaan qabyaaladda noocaas kula dagaalamo una bedelo qabyaaladda maadaama aan Soomaalidu iska daynin qabyaaladda aanu bedelo wax natural ah iska caadiya comedy ama maada oo aan lama taabtaan ahayn waan gartay aad ma santa waayahay warqad waa sida aad u sheegtay maxaa ku hirgalay marka barnaamijkii aad samaysay maxaa ku hirgalay tooshka siyaasadda oo kaaga hirgalay barnaamijka tooshka siyaasadda uu hirgalay wuxuu noqday barnaamij saameyntiisa leh oo badaha ka talaaba oo halkan xataa Somaliland kaliya aan ku ekeyn ee gaadha macal deegaanada Soomaalida oo dhan meel kasta carreedii ka joogan marka waxyaabaha ii hirgalay ee aan imika ku sheegi karo waa in qabyaaladii ama wixii qabiilka la oran jiray laga baqan jiray iyo wixii la qaran jiray aan banaanka keenay in si natural oo caadi ah loo arko in lagu kaftamo inay maad noqoto inaan la isku nicin marka waxaan ku leeyahay waxyaabo badan baa ka hirgalay ujeedooyinkan ka lahaa barnaamijku marka barnaamij noocaas ah waxaan aaminsanahay 80% waxyaabaha aan wasaasay ama sababihi aan u hindisay inay hirgaleen waa tahay waayahay gartay warqad waxaan kale oon ku weydiin rabay ereyo waxaa jira aad isticmaasho oo ereyo aad u hirgalay maqalka tooshka siyaasadda ereyadaasi oo ah aniguba waan isticmaala anigoo Maxamed Cawka waxaa ka mid ah xisaabta xashin mathematics algebra bay hadbaan malaynayaa qolka algebra qolacday ha go'da formula iyo waxaa kaloo jirtay balaqu ciyaadhay oo kale ayaa jirtay waxaa kaloo aad jirtay adkaatay iyaduna way jirtaan malayn ereyadaas oo dhan iyo qaar kaloo badan oo adiguba aad isticmaasho ayaa jira oo dee anigu way yara ilowsana adigaa noo sixi doonay ereyada halkaad maxaad uga jeeday ereyada aad halhayska aad u leedahay aad meesha soo dhigta oo kale ereyada bal halkaa noo yar jilciyo noo fasilba horta dhowr baan u kala qaadi doonaa mathematics nooga bilow ta u horeysa haddii aan ka jawaabo si ay ku timi xisaabta leeyahay xarshin mathematics oo noqotay xisaab caan baxday oo saameynteeda runtii yeelatay dadkuna su'aalo badan iga soo weydiiyaan waan gartay sida ku timi haddaan macnaha tusaale yar ama aan ka faaloodo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu jeediyay qodba sanadeedkiisii labada gole ee baarlamaanka waxaan leeyahay sanadkiisii labaad bay ahayd waan gartay marka wuxuu markuu marayay qodobkii ahaa miisaaniyadda qaranka ayaa madaxweynuhu waxa la sheegay xisaabta in aad isugu adag yihiin marka wuxuu miisaaniyadda dalkeena boqolkiiba 50 waxaan u isticmaalaa amniga idfaac boqolkiiba 48 waxaan u isticmaalaa caafimaadka biyaha iyo baahiyaha asaasiga bal 50 iyo waxa sugaysaa 48 waa 99 way ay noqonaysaa marka xisaabtii boqoleedahay guud ee miisaaniyadda qaranka halba dhiman qoliyo mucaarada adigu ayaa yiri halkaasi xaguu ku maqan yahay ma halkii musuqmaasuqa madaxweynaha qaatay marka aad baa loo faaliyay waan fikiray xisaabtan horta madaxweynaha ku difaaciyay waan gartay marka waxaan dhigay madaxweynuhu ma khaldana xisaabtan waa xisaab jirta waa la isticmaalaa xarshin mathematics baa la yiraahdaa haddii aan idin cadeeyo waxaan imika tusaale soo qaatay tusaale ahaan adiga ayaan $50 ka qaatay saaxiibka adigoo Maxamed Axmed Xasan Cawka ayaa kortan adiga qaaday $50 baan ka qaatay way xisaabtii baan galaynaa waa ka kulatay kortan baad iga qaaday Xasan maal dhidirna waxaan ka qaatay $50 waan gartay waa 100 xisaabtaasi waa 100 $100 baan qaatay bacda Hargeysa tagay shaar baan soo iibsaday shaarka waxa laga siiyay $790 $790 baa laga siiyay $100 waxay haray $3 soo haray hal adaan ku celiyay hal waxaan u celiyay Xasan maal dhidir marka hal baa hadana soo haray hal baa soo haray halkii بريبيد بان كشبتay ana ku shubtay بريبيد waan gartay waa gartay ama qof kale aad ku shubtay ama qof baan ku shubtay tusaalaha aye marka adigu koon door baan ka amaaday hal baan ku celiyay lacag maxad u leedahay waxaan kugu leeyahay 49 xasan maal hal baan u celiyay koontan waan ka hayay muxuu leeyahay 49 busna kugu leeyahay way 49 ugu waxay noqonaysaa 98 98 baa noqonaysaa halkii aan ku celiyay iyo halkii aan xasan maal u celiyay ku dar
maana 100 buu ahayn waa 100 buura halkii aan ku shubtay ayuu ka iibiyay xisaabta 100 baa de waa dheeraad ba وديرات de ma xarshi mathematics ba markaa waxa xarshi mathematics Allah yada marka jirta marna ku darta taas loo baahan yahay marna way ka jaraysaa marna way ku daraysaa aad horta xisaabta xarshi mathematics sidaas ay ku timi feedback badan baa ka soo noqday dadku waxay ooga shaqee adigu dadtan waxaan xisaabtan aniga iyo madaxweynaha iyo nin ku maqan koonfurta Suudaan baa yaqaan geeska Afrika ba xarshi mathematics baa dhaha wasta marka halkaas xisaabta xarshi mathematics sidaas ay ku timi haddii aan u gudbo algebra qool caday oo kale iyo go'da formula oo kale iyo adkaata iyo waxyaalo badan bay haayeen oo ereyadu aad bay u fara badnaayeen waxa kamid ahaa landere kar wada intaana baad iga way jirtay shakadaasi horta adigu go'da oo kale markaan sheegayay macnaha waa marka siyaasad xisbiga wadani uu ku adkaado ama uu shax soo dhigo ayaan dhahaa xisaabtan waxa loo isticmaalay go'da formula algebra qool caday oo marka xisbiga uu cido kale uu siyaasad soo dhigo oo siyaasadaasi ay u hirgasho ayaan saas kale u isticmaali jiray ama oran jiray wuxuu isticmaalay qool caday الجبرة sidoo kale iyo dhaboolaq iyo adigu waxyaabo noocaas adigu waa siyaasadii iyo xisbiyadii iyo waxyaabo xilliga ololahan ku jiray iyo campaignadii adigu baraan ayaan hindisay erayada noocan ah ta ugu adag adkaatay way jirtaa kelmadaasi kelmadda waxaan u isticmaalayay maxamedow adkaatay iyo fududaatay labaduba way jireen ma waan u iman doonaaye adkaatay xilligii doorashada lagu jiray campaignka doorashooyinkii baa la galay xildhibaanadii baa la doortay waxaa dhacday markii sida doorashada uga soo baxnay in asxaabtii siyaasadda ee Somaliland ay macnaha xildhibaanadii ka soo kala baxay asxaabta mucaaradka iyo kuwii muxaafidku ay isdaba maraan oo mucaaradka qaar ka baxo muxaafidka u galo oo haddana mar muxaafidka qaar ka soo baxo mucaaradka u galo isbahaysi waxbaa dhacay waxa kala dhacday markii hore ee doorashadu dhamaatay aqlabiyadda guud ahaan dalka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waxa ku guuleystay asxaabta mucaaradka ayaa ku guuleystay isbahaysi bay samaysteen markaas sidaas ay aqlabiyadda siyaasadda dalka ku lahaayeen marka tusaale ahaan marba xildhibaan ka soo baxay isbahaysiga uu u galayay muxaafidka oo xisbiga kulmiya marka qoladii mucaaradka ahayd way ku adkaanaysaa maanta laba xildhibaan baa goostay oo u galay muxaafidkii marka adkaatay halkaas ay ka timi haddana qaar baa ka soo baxay oo u soo galay isbahaysiga haddana way adkaanaysay war maantana adkaatay war miya adkaatay war ma sii adkaatay markii u dambeysay way adkaatay koob iyo 10 ka soo baxay xisbiga u cid iyo wadaniba qaar kaga jireen waxay u galeen oo isbahaysi la samaysteen xisbul xaakimka kulmiye markay aad u adkaatay ku adkaatay mucaaradka waliba markaas ay hayd haddana waxa dhacday adigu in ay qolo kale oo xildhibaanadii muxaafidkaana haddana halkan u soo galeen isbahaysiga marka laba isbahaysi baa dhacay isbahaysiga hore iyo isbahaysi dambe u cid iyo wadani oo aanu bixiyay wad cid iyo haddana u cid iyo kulmiye aanu bixiyay kud cid marka marba dhinacay ku adkaanaysa xisaabtu marka adkaatay halkaas ay ka timi waan gartay haddii aan gudbo su'aasha kale fududaatay waa xilligii adkaa ee marba xisaabtu adkaanaysay ayaanu ka soo gudubnay inaanu doorashadii dhacday si nabadgelyo ah gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii la doortay si qurux badan oo dimuqraadiya dabeetana fududaatay waxay ahayd maalmihii u dambeeyey ayaan kelmadda isticmaalayay si qurux badan bay nagu dhacday way dhamaatay haddii aan usoo noqdo su-aasha kale waad weydiiso bela ku cayaadh oo kale waa ereyska kaftana maxamed axmed xasan cakow waxaa isticmaalaa nimanka Puntland oo asxaabtayda ugu faraha badan ay ka mid yihiin runtiina ka mid ah deegaanada ama beelaha aan ugu jeclahay dadka Soomaaliyeed xagga noqoto kaftanka reer magaalnimada siyaasadda markay ciyaarayaan baash leeyahay dubnada ayaa haddii xajar uu waayo kaasi ama xajar marka loo baahnaa uu soo dhigo oo dubno uu soo dhigo intuu soo dhigo oranaya bela ku cayaadhay maxaan bartay marka halkaas ay ka timi kelmadaasi astaghfirullah halkaas ay ka timi way hirgashay oo waatan de waxa kale oo jirtay waariya ina bahalkan halku ka yimiday ma bahal baa dhalay
سأبيه بين بحال كيلو بحال كان نوير جلعية محمد أحمد حسن عوكي ومحسن تاي صاحب شيكada waariyeyna bahalkii waxay ku timi lafteedu waa arrin ka timi xagga madaxweynaha yahay Musabix Cabdi waan gartay madaxweynaha Soomaaliland anigu waxaan aqoonsanahay inuu yahay madaxweyne talented madaxweyne talented waan gartay oo talented ayaan u aqoonsaday ereyadiisa iyo khudbadihiisa iyo waxyaabo ujeediyo waan dhageystaa waan dhuuxaa waxbaan kala baxaa maadiya kaftan baan ka dhigaa marka kelmadda madaxweynaha ka faa'iiday waxayna ahayd sidaan filayo maalmaha kamid ah saraakiil ciidamada qalabka sida oo ku qalin jabinayay Daraweyne iyo meesha la yiraahdo Daraweyne iyo meesha la yiraahdo Mandheera labada mid ay had garmay laakiin labada dugsi midun bay ahayd ee tababarada marka waxa dhacday madaxweynaha wuxuu su'aal weydiinayay isagoo mikrofoonku hoos yaalo mid kamida rag garabkiisa tagna soo dhayn ninkaasi muxuu ahaa kabtankaasi marka ninka ku dhaymada madaxweyne meelan garanayn waa ina hore haariye waa ina hore haariye wasoonayo Allah madaxweynuhu Allah hariyo mina baalkiiba mikrofoonka hoos yaala marka TV qaran kareed baan malaya sheekadana baalkii halkaas ay ka timi oo madaxweynaha ayaa yiri markaa waxbayna baalkiiba wariyaha markuu waa ina hore haariye madaxweynuhu meeyri muxuu ahaa sarkaalkaasi wuxuu yiri madaxweyne meelan garanayn waa ina hore haariye marka madaxweynaha oo gartay ayaa yiri wariye Allah hariyo mina baalkiiba وهنا بالكي marka sheekada waariyayna bahalkii halkaas ay ka timi erigaas halkaas uu ka yimid waan isticmaalay madaxweynuhu ku mahadsan yahay inuu madaxweyne talent xaga laga eego madaxweynuhu inuu talent liyo inta badan markuu khudbadaha jeedinayo ama uu hadlayo ama uu kaftamayo waxyaabo badan oo mahadha abu reeba marka waxaan ahay soo arkaa inaan ahay qof madaxweynihiisa ka faa'iideystay oo khudbadihiisa iyo hadaladiisa isticmaalay ayaan soo arkaa marka kelmaddaas halkaas ay ka timi oo kelmadaas wax kale oo ku jira ma jira waa halkaas saasay ku salaysay oo waa ninka la isweydiyo oo ayna bahalkii madaxweynuhu ku jawaabay waayo inagoo u soo noqonayna su'aalaheeni imise qof ayaa kula daadiyay hota barnaamijkaaga tooshka barnaamijka tooshka siyaasadda inkastoo jeclaa su'aasha inaan ka cudur daarto haddana waan kaga jawaabayaa tooshka siyaasadda keligii ayaa daadihiya keligaa baa daadihiya waan gartay oo keligaa baa daadihiya barnaamijka keligii wow oo sidee markaa keligaa ay kugu suurto gashay in aad intaasoo cod intaasoo laajadood intaasoo qolo oo afkooga shimbirba cidayday sida aad u samaynayso bal dhowr qodob ma nooga yartaa taaban kartaa 3 ilaa 2 imika maxamed su'aasha in badan baa dadku weydiiyeen ama saaxiibada ay ku taxaan boogaga baraha bulshada su'aasha haddaan kaga jawaabo macnaha siday ugu suura gashay anigu baa 2 codleeya ama 3 codleeya ama 4 codleeya marka qaar baa jirtay inaan 5 cod aan matalo marka anigu baa 5 codleeya tusaale ahaan markaan u hadlayo sida gobolada Puntland oo kale warbowe uriyaa markaan u hadlayo tusaale ahaan halkan waqooyigan oo kale xataa laftiisu kala yara duwan war ninkii baalkii war nabada bal raba arxaaysa wow tusaale ahaan war huuna maxaa sheegteen huuna ma fiicantiin tusaale ahaan marka saasan u jilaa marka dhafa Soomaali galbeed oo kale ama ogaadeen aga war hadee awowgii la gub muxuu leeyahay gaalka laga soo gooyay doorta wacayuu marka leedahay oo kale iyo marka saasan isagana u jilaa waan gartay أنا واحد أصلاً marka waa keligaun وكليون ما شاء الله wahiba aad u leedahay iyo dadkii aad wada taqaan la jadoogi waan gartay barkad waxaad ka sheekaysaa waxa weeyaan oo aad taqaan dhaqamo qabiilada Soomaalida oo dhan waad garanaysaa taariikhooda oo dhan waad taqaana deegaamadooda dhan waad taqaana barkad marka sidaa loo eego qof deegaamadii iyo qabiiladii Soomaaliyeed oo dhan iyo dhaqankooda garanaya waxa loo dhan waa oday aad iyo aad u weyn hadda laakiin inan yar oo sidee kugu suurto gashay intaasoo maqal mareen baad ahayd oo ya su'aasha haddaan ka jawaabo maxamed axmed xasan cawkow anigu qaacidaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida la yiraahdo inay yihiin chess meel yaala runtii waa dad aad u kooban marka loo eego shucuubta caalamka ama geeska Afrika oo kale jilib Oromo baa ka badan Soomaali oo dhan kala isu geeyay qiyaastii waan gartay marka anigu Soomaalida horta chess baan u qanaas sideedaba ama qoys meel degan waa dad isku isira waa dad isu eeg waa dad isku dhiyaaneeya inanka jooga Baydhabo iyo inanka jooga Baki oo Boorama iyo inanka Burca jooga inanka reer Berbera
ka jooga qandarbeyle iyo boosaaso hadday halkaa maraan macnaha la odhan maayo kaasina waa reer baydhabo kaasi waa reer Hargeysa kaasi waa Soomaal way isu egyihiin wadada isu eg waa isku dhiyane waa isku dhiig marka anigu qaacidadan aaminsanahay inay Soomaalidu jees tahay ayaan horta aaminsanahay marka hore iyadu ay iskala gurto oo reer hebel iyo maamul hebel iyo jamhuuriyad hebelay waxa ay la kala baxaan laakiin anigu jees baan u aqaanaa qodobka koobaad ka labaadna the social media iyo teknolojiyada casriga baa fududeysay inaan intaasoo dal iyo deegaanadii iyo dhaqanadii barto TikTok baa la wada joogaa Facebook baa la sugu imanayaa YouTube baa la joogaa sidoo kale safaradii dadkii baa isu imanayo magaalooyinka baa la sugu tagayaa marka asxaab badan aan ku leeyahay teknolojiyada oo fududeysay Soomaalidu anigu aan jees marka hore u aqaano ayaa ii fududeeyay inaan barto dhaqamada macnaha wax saas weyn mahaba waa wax aad u yar weey Soomaalidu intay waa jees yar weey geeska Afrika yaala weey isku midaba isku diina isku afa waan gartay marka wax weynba ma habad leedahay waa la baran karaayo waa chess meel yaalo waa reer meel yaalo oo waa Soomaalida gurguraysa waan ku gartay oo taariikhdii hore ee sida marka lagu eego wada weyn oo tagay oo ka soo haray dawladii hore oo yaa dalmara ayay umadu laakiin ku haysata laakiin maanta isha macalina waa kuwan arkaya oo barkhad inuu yahay nin daayar oo halka aad iyo aadna aad uga iftiimisay inaad dalmarna aanu noqon aad u boqol meelo badan waan gartay ujeedada ugu weyn hadaba aan ku soo noqdo su'aasheeda kale ee ugu dambaysa imika aan ku weydiinayo inagoo haddana kafta keena sii wadan doona barkhadow ujeedada ugu weyn ee aad ka leedahay barnaamijkan tooshka siyaasadda bal ma nooyar baahin kartaa ma nooyar sheegi kartaa bulshada dhammaad u iftiimin kartaa aad bad maadsan tahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad Maxamed Axmed Xasan Cawke runtii saxiif weyn oo rugcaday oo bulshada Soomaalida sumcad weyn ku lahaa baa ku dhalay Allah naxariisto abo su'aasha haddaan ka jawaabo ujeedada ugu weyn aan ka leeyahay barnaamijkan aan ugu magac daray tooshka siyaasadda ujeedada ugu weyn waa inaan kula dagaalamo sidaan horeba u sheegay qabyaaladda cunfiga ku dhisan isnaaca iyo naxriga lagu qaybiyo inaan dadku iscaayin dadku inay ku kaftamaan wixii qabyaaladii natural aan ka dhigo aanay wax xumaan noqon macnaha qabiilku ceeb maaha in la sheega ceeb maaha qabiilka marka inaan bahashi la qabyaaladin oo la xumaan reer hebel waa gun reer hebel waa sidan waa laangaab waa laandheera iyo waxa inaan meesha la keenin tooshka siyaasadda marka lagu kaftamayo nin kasta waa laandheere isaga sidiisa u sheeganaya laandheeraha wax cid gaar leedahay maaha marka inaan kula dagaalamo qabyaalada noocaas oo aan ka dhigay qabyaaladii wax natural oo caadiya cunfigana aan ka saaro mar haddii Soomaalidu aanay iska degayn waayo in ku dhow 60 sanadood ayaa Soomaalida laga wacyigelinay qabyaalada mar waxa la sheegaa taariikhda siyaad bareen la aasay qabyaaladu wala aasay oo inta la kafamay oo la kafamay haddana Soomaalidu iska meeday qabyaalad baa haddana waa tii soo noqotay marka Soomaalidu mar haddaan iska degayn qabyaaladii warba bahashin aan cunfiga ka saaro oo aan ka dhigo wax caadiya oo lagu kaftamo mad comedy baa lagu dhahaa Englishka marka aan comedy u bedelo baashi qabyaalada la isku diri jiray dhiiga ku daadan jiray dawadiga metelba ka dhigay mar haddaan la iska deynayba qabyaalada joon dhiig ku daadan waan gartay la iskuna nicin lagu kaftamo laga sheekeeyo waxna aan la isla harin marka dadka anigu u sheegay waxaan ku dhahaa waxaan idin hayaa qabyaaladii oo qalalan oo aan geel loogu soo gaban oo mid aan qoyaanba lahaynba marka hadafka weyn aan u sameeyay waa nooca inaan dadkayga maaweliyo oo aanay hadal ama shir jiraayado meel beel ku qabatay ama hadal beel ka soo yeeray ama hadal qof mas'uul ka soo yeeray reer ku salaysan waan daawadaa waan ka cunfigan ka saaraa waxaan ka dhigaa wax comedy caadiya wala daawadaa halkaas ku soo afkaa marka ujeedada ugu weyn aan kale ugu badan ee ku daawada ayaan ahay oo marka aan comedy-ga aan u baahanahay waa si wacan walaalo waad ku mahadsantahay sida quruxda badan ee aad u iftiimisay aad badan bulshadana imika aad daaha uga qaaday mar hore in yar baa ka dadneyd moogta waa si wacan walaalo aniga laftigayga horta toosh baan ku daba hayayba halkaan ku yar noqonay oo tooshkan toosh daba hayaayo indhahan toosh kaga shiday maanta laakiin waan iga indhaha toosh kaga shiday aad iyo aad baad ugu mahadsantahay muuqaalka aad na siisay aad kugu marti qaadnay barnaamijkayga aad ii tixgelisay oo waqtigaaga aad na siisay dadkeena daawanaya meel kasta carreeda ka joogaan waxaan leeyahay habeenka iyo maalintu waa idin wacnaadaan magacaygu waa Barkad Saleebaan Galaal in badan waxa laga yaabaa codkayga inaad maqashay laakiin aadan arag muuqayga waariyayna bahalki marka sababtaasina kulay waa sabab aniga gaar aan doortay dhowr kelmadood ka sheegana runtii anigu kamarada aad baan u
nacabahay sababtoo ah waxaan ahay qof dee bulshadiisa ku dhex jira waan gartay dad igu xidhan oo asxaabtayda oo daawanaya baan kursiga wixiga sidaas kale la fadhiyaa aan garanayn baskaan la saaranahay hudheelkan la fadhiyaa maqaaxidaan shaah ka wada cabnaa masaajidkan ku wada tukanaa marka haddii aan live soo galo ama kamaradan oo kale aan soo fadhiisto dadku way ku baranayaan war waa tooshkii siyaasadda hayay meelaha laga yaqaan runtii ama sida dadka imika igu xidhan oo adigu ilaa 150 ku dhow de intay taqaanaa 10,000 ama 3,000 4,000 5,000 meelaha weeyaan waan gartay marka waariya tooshka waan iska kabaynaya oo jibaalku magarasa inta badan de waan iska kaftamaa marka waxa jira walaal dadku waa sida faraha ma sinna qaar hadalkayga ama barnaamijyadii waxaan ka shaqeynaya xataa de qalad u fahmaya jira waan gartay marka caqabada noocaas isaan iga horiman ayaan kamarada horta lagu dhacaa hadda waxaan leeyahay dadka waan islaamayaa meel kasta carreeyada ka joogtaan habeenkii maalintii waa haydin wacnadan caafimaad baan idin rajeynayaa adigana waan ku mahad celinayaa maxamed axmed xasan cawke maal tv sidoo kale aniga oo sidoo kale ayaan kugu mahad celinayaa walaal horta barnaamijyadan aad samaysa ee faraha badan ee barada bulshada ay dhageysiga aadka loo dhageystay barnaamijkii kugu saameynta badnaa miyaad noo sheegi kartaa barnaamijyadan aan sameeyo ee tooshka siyaasadda dadku waxay sheegaan horta saameynta dadka sheega waan gartay macnaha bulshada ku xidhan adigu ma arki karaysid waxyaabaha aad ka hadasho laakiin dadka ku xidhan ba sheegay marka barnaamijyada horta aan soo dhigo inkastoo dadku ay yidhaahaan barnaamijkii ka dambeeyey uu ka saameyn badan yahay ama uu ka iftiin badan yahay tooshku caawa iftiin badanaa bay dadku odhanayaan kii aadka ugu iftiinka badnaa laakiin barnaamijyadii aadka u faafay iftiinkiisuna aadka u tooshku siyaasadda uu aad ugu iftiimiyey waxaan u malaya horta qaar baa 1 milyan gaadhay laakiin barnaamijkii aan soo dhan karo mid iyo labaadaan ka soo qaadso barnaamijkan ka sameeyey markii la doortay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Roble uu magacaabay Farmaajo Roble oo habar gidira oo mucaarad ahayd ayaan barnaamijka ka sameeyey waa nin cararaya marka aad buu ninkan wardiyay habar gidira isu soo baxa oo ra'iisul wasaaraha inoo magacaabay uu dhacaya uu ku fayay burahaas kale cararaya waan gartay marka dad baa ka hor imaanaya ra'iisul wasaaraha inoo magacaabay war sacado war saruuro war waa ordayaaba asbordiya ra'iisul wasaaraha inoo magacaabay isu soo baxa war filadeena gali barnaamijkaas oo aad buu faafay Soomaalidana meel kasta carreeyada ka joogan uu gaaray runtii taageero fara badan waan ku kasbaday barnaamijka labaad ka ay soo raaca way badan yihiin barnaamijyo fara badan baa jira si barnaamijkan aan soo dhan karo uu faafay ama dadka waxa jira barnaamij aan qof barnaamij waxa jira aan sameeyey oo qof faraxsan oo qoslaya mooyaane aan waayba qof ka cadhaysan waa barnaamijka balnooshay barnaamijkaasi wuxuu ahaa laandheera karka iyo aad markii weydiinaysay waan gartay maxamed su'aasha waan ka booday markii markaa haddaan ku noqdo halkii laandheera karka laandheera karka waxaa doorashooyin baynu gallay doorashooyinkii markaanu gallay reero fara badan oo laandheera sheegan jiray ama laabta garaaci jiray baa iska waayey golayaashii wakiilada iyo deegaanka qaarkood ba adigu golayaasha wakiilada ugu muhiimsanaa bay iska waayeen reerahaas marka golayaasha wakiiladu waa golayaasha waa golaha baarlamaanka ma Somaliland ba ma Somaliland marka reero fara badan oo de anigu waxaa ma qariye sida reer suulo oo kale saman oo kale nimankii reer daahir oo kale nimankii nuux ismaaciil oo kale oo de laabta garaaci jiray afka saab taagay war waxaan nimo la dheera allah hayay ayaa guriga wakiilada iska waayey marka barnaamij baan sameeyey barnaamijka waxaan wareysanayaa nin aan ku sheegaya markaa inuu yahay xildhibaan nuux ismaaciil oo dhacay oo meel laamiya saa u cararaya ayaan gaari ka daba ka haysanaya marka waxaan leeyahay barnaamijkan waxaan ka duubay xildhibaan nuux ismaaciil ah oo golihii wakiilada iska waayey oo dhacay dabeedna magaalada dabayl uga baxay marka waan wareysanayaa nuux bal nuux arwe nuux baa shooranayaa niyo golihii wakiilada anoo nuux ismaaciil iska waayey marka dabayl baan uga baxay magaalada bal yeersug bal adigu barnaamij noocaas aan duubayaa waan gartay marka waxaan leeyahay soodig laandheeraha maxaa dhacay nuux ismaaciil siibad golihii wakiilada iska waayey wuxuu oranayaa war ma maqli jirtay dhiikar dadna waxaan ku leeyahay hawl maqli jirtay wuxuu leeyahay haddaad maqli jirtay dhiikar waxaa dhacay laandheera kar baa dhacay buu oranayaa laandheera kar marka laandheerihi oo dhan baa karay marka dhiikarkii laandheerihi oo dhacay baa karay buu ayuu haddaad dhiikar maqli jirtay laandheera kar baa dhacay marka Nigeria ku gelayaa anoo nuux ismaaciil haddana golihii wakiilada faraha ka taagay laandheerihi baa karayba laandheerihi kar buu oranayaa waan ka baxay marka laandheera kar baa ayaa dubay horta laandheera kar halkaas ku timi barnaamijkii
aan qof qoslaya mooyaane qof kalena feedback iga soo celin buu ahaa barnaamijkaasi nuux ismaaciil baan ka duubay xildhibaan nuux ismaaciil oo dhacay baan ku matalayay barnaamij kale oo isna saameyntiisa leh wallahi way badnaayeen hal barnaamij ayaan ku yar xasuusinayaa barkadow barnaamij aad leedahay waa niyo mataqaanid reeraha sida looga shubto barnaamijkii ninkii shaaxa karsanayay yar xasuusooto u jiray barnaamijkaasi u jiray waa barnaamij maalin beesha ayuu kaga hadlayay beesha ayuu iyo beelaha siyaabaha looga garanaysaa loola noolaaday ama looga shaahee dee waxay ayaan ku dhibayaan reer kasta ruxmayo marka barnaamijku wuxuu ahaa markaad sacad muuse oo kale doonaysa maanta inaad ka qaysho oo aad ka tirsato oo aad qaadka ka qaadato waryaala waa nimankii sacad muuse waa nimankii ilbaxa hayaay waa nimankii dadka dhoofi jiray masay kurayaan soo fadhiiso ruuxa ninkii la yaqaanay oo saad ma leedahay markaasay u wada shubayaan markaasay ruxmayaanaha garxaystoo kale markaad doonayso siiba habar yoonistoo kale markaad doonayso inaad baadhato maanta ay saadaadka baadhaan waryaal waa nimankii habar yoonis waa nimankii gaal australia lahaa hayaay waa nimankii daareelaa doolo deganaa masay kurayaan soo fadhiiso saad ma leedahay iyo dahab ma leedahay markaasay aad kaga shubanaysaa iyagana markaasay kaga shubanaysaa marka barnaamijkaasi noocaas ahaa barnaamijkaasi waa la daawaday waa barnaamij aad iyo aad u qosol badnaa aad buu qosol badnaa inkastoo aad dadkana aad la daristay oo wallahi waxaan kugu tilmaamo marka horeba wax kaftaba anigu qabyaaladda qofku hadduu yahay qof aadama ah oo mowqifkiisu meel ku taagan yahay aragtidiisuna aan ahayn aragti cunfi ku dhisan aan ahayn waan gartay qof meel ka fikir yahay ankaas ma laandheera u qanaa kaasuma laandheera marka qaacidada laandheera iyo laangaab ma aaminsani aan waan ku kaftamaa waxaan arkaa wax iska caadiba waan gartay inaga oo barnaamijkeeni sii wadan doonaa oo aan ku jirno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta barkadu sugaanta aad ma u dhegeysataa sugaanta heesaha oo kale iyo gabayada oo kale balwad bay yihiin heesaha aad ma u dhegeysataa heesaha waan dhegeystaa kuwii hore ayaan aad u dhegeystaa heesta aad u jeceshay inta badan ay kugu jirto laxankaaga dee ku daaran heesta aan aadka u jecelahay magaciga waxaa la yidhahdaa sayla xasan aadan samatar iyo sahre axmed midhaha waxaa sameeyey xasan geley sayloogu yaal badan baa la yidhahaa waa heestaan heesaha ku jecelahay aan dhegeysto had iyo goor aanan xiisa dhicin xagga gabayadoo kale waxaan dhegeystaa guba iyo gabayadii hore oo dhan markaa sugaanta waa balwad dayda labaad haddaanay tata koobaad ahayn baa odhan karaa weli hees aad curisay oo amba ereya aad tirisay oo gabayo oo kala halkaa maad isku yar dayday oo maad tirisay horta maxamed axmed xasan cakow anigu abwaan ma yihi dadka waxa la dhahaa abwaannimada kulay teetalo fara badan bay leedahay waan gartay marka abwaan ma yihi iminka intii dee adigu soomaalidu ay isdhex yaacday waxaa la biliqaysay waxyaaba fara badan waan gartay dhowr iyo 20 teetal aan ka sheegi karo sida macnaha abwaan daktar fanaan injineer garyaqaan hebel suldaan hebel marka teetalo noocaas la biliqaystay marka anigu waxaan ka soo gaaray ama aan ku jeclaaday aan si biliqada ka qayb qaadana galaalo daktar marka inta badan horgalaha magacaygu waa daktar barkhad saleeman galaal daktar ma yihi caafimaadna ma dhigan neef xoola ana ogso kuma mudin xataa kinin caal ma laqsin xataa neef gela qofna ma durin laakiin biliqadu ma ka qayb qaatay marka biliqadii teetalada daktar baa horta anigu aan ugu jeclaadoon horgalaha magacayga wax waan sameeyaa waan isku dayaa way jiraan heeso wax u eg oo aan curiyey laakiin cid uma dhiibin lama qaadin maansooyin waxaan ugu yeedhay na way jiraan oo aan sameeyay aan isku beegbeego anigu waxaan ba iska xaq ku soo dhawaada qararac aan loo meeldayn waan ogahay oo waa kaftankaaga ayay ka mid tahay qararac aan loo meeldayn iyo siday kajaada aad u soo bandhigtay iyo dadka iyo qosolkaagaba taa waan arkayaa laakiin markay dadku ku arkaan barkadow ninkan waa sugan yahan aba waa abwaan eheladaada abaha amba kacab eraya tirin jirtay oo amba gabi jirtay eheladaada may ku jiraan may jireen adigu abahay baa allah naxariisto ragaaxa ismaaciil faarax ragaaxa ismaaciil galaal ha waxbuu tirin jiray adigu afreedii saddexreedii uu tirin jiray waxaa jira qof laba eray intuu isku soo beego la soo cararay oo dhanaya abwaan hebel fanaankii hebel ma aha sida baashu teetalay leedahay shaandhay leedahay ma hibeen leedahay ilaahay uu siiyay maadankiisa marka qofku hadduu laba eray isku beego inuu abwaan sheegto afka saa taago
anigu maxaan marka arkaa abwaan ku sheegay dadaan aragti fogeyn marka anigu waxbaan isku bagbagaa laakiin ma ihi abwaan mana sheegan karaba waan gartay waayahay barkado socialku imika waa kan caanka all of the world imika waxaa la isticmaalaa smartphone baa la isticmaalaa oo adiguba aad isticmaashaa oo waatan day barta internetka aynu imika aan youtube-ka hadday noqoto facebook bay noqotay ereyaa la raadiyaa magac bixiyaa la raadiyaa adiguna waxaa tahay tooshkii siyaasadda tooshkiina waa adiga hore nooga soo sheekeeyey marka adigu siyaasadda miyaad baratay oo siyaasadda miyaad wax ka yar taqaanaa maxamed axmed xasan cawke saaxiib waa su-aal wanaagsan haye maanta waxaa jirta siyaasadda soomaalidu horta anigu siyaasadda balwad bay tahay inaan indhaindhayo siyaasadda soomaalida iyo tacaalamkaba oo aan dhegeysto oo aan garanaysaa wararkaan dhegeystaa dadka weyn baan la waraystaa ayaan waraystaa dadkaan dhegeystaa websaydadan galaa waxbaan akhriyaa taariikhahan raadiyaa sidoo kale suugaantaan raadiyaa waan baaraa waan akhristaa dee waa dhaxalkii oo soomaali baynu nahay markaa siyaasaddu balwad bay ii tahay markaa walaal siyaasadeedu ma dhigan fakal politicalan ka baxayna ma jiro laakiin siyaasadda soomaalidu waa iska fashil maalin dhaweyd gudoomiyaha xisbiga cid injineer faysal cali waraabe shir jiraayad iyo cirri wada qabanayeen buu lahaa war madaxweynaha maalin aanu caare kala hadlin inaan u tagnay bal lagu yidhi habeen cirkaa soo damiso dabeedna waxaan warniyow qaranku miyaanu sirba lahayn siyaasadda qaranku miyaana sir lahayn oo marka haddii lasir qoonsado miyaana sir lahayn oo waxyaaba macnaha birimageedahay meena jirin markaa siyaasadda soomaalida meel kasta carre edanka ka joogto soomaali galbeed ha joogto jabuuti ha joogto koonfurta soomaaliya ha joogto bartamaha ha joogto tiina waa fashil oo wax iska cad waxaa istiraaheen wixii axadiyada wada gasheen siyaasiga ma siyaasaddu waa sir waa political halkaa imika aad lahayd dowladdii ayaa oo aad imika cid aad ka sheekanaysay gudoomiye faysal cali waraabe keligii maaha waa siyaasadda soomaalida oo dhan meel kasta ha joogto oo iyada oo dee fashilan oo cidka ayay soo duminaysaa madaxweynaha puntland baa lahaa waxaa la soo hadlay maxamed cabdilaahi farmaajo waa madaxweynihii qaranka waan gartay waa halkii u sarreysay wuxuu telefoonka kala soo hadlay wuxuu yidhi waa adiga ilaaha ha la gaadho 8 February hawiye way ku soo daadanayaan waxay soo daatay ma aragtay bii guri macnaha dani baa odhanaya wuu soo garaaco miyaad aragtay hawiye iyo wax meelaha iga soo galgalayo madarkiis waan gartay macnaha qaranku meeshu doonaha joogo waxaan siyaasadda lahayn inay sir yeelataa wanaagsan marka waa iska fashil marka siyaasadii Soomaalidu way balaqan tahay wax daaha oo daaha ka saarayayna maaha oo dadana maaha marka waxaan bulshadana aan badda siyaasiyiinta aynu oo farin aad u diraysaa ma qodobkaas waa muhiim oo in ay siyaasadooda ma siyaasaduna sir yeelato waanu garanay waayahay barkadow siyaasadooda inay sir yeelato weeyaan wixii sir la ayaa sumcad leh kowdhe barnaamijkeenuna waa tooshka siyaasadda oon toosh dabahayay oo aan toosh indhaha kaga shidayo waxaan ku weydiin rabaa su-aashan cirdumayaasha waxaan filayaa inaad ujeedo habeenimo cirka soo dumiya cirka soo dumiya barnaamijkaasi markuu soo baxay faysal shirkaa jiraayad qabtay uu sidaa u sheegay anigu waan fikiray kulli waxaan haydee qof public figure ama ummaddu dhegaysato markaas si aanay habaryonis lafteedu ugu arag barnaamijkii cunfi ama nacayb madaxweynaha ka soo yeedhay iyo ka sirtaa qarin waayey laftiisuna culayska uga dego barnaamij baan sameeyey barnaamijkaas oo ah habaryonis cirka soo dumiso markaa comedy baan ka dhigay markii hore wax adag buu ahaa marka si loo eego haddii siisa loo daayo waa hawl aad u adag madaxweyne qaranka dad qayb ka mid ah shacabkiisii inuu lahaa cirkaa soo dumiyaan ku leeyahayna uu yahay mas-uul qaran madaxweynahana culays bay ku ahayd gudoomiyihii sheegana culays bay ku ahayd reerka laftiisii dee naxri bay ku jar noqonaysaa ama fiiro ficilta waan fakeray barnaamijkii waan bedelay barnaamij baan ka sameeyey layidhaha cirdumiyeenka habaryonis markaa nin meel fadhiyo oo nin u imanayo le war waa cirdumiyeenka habaryonis warba waran oo dabeedna odhanayo arne war ma jire iska daa muusan cirka kusoo duminanaya leeyahay arne ka daaya iska ciyaaraya madaxweynuhu marka barnaamijkii nooca ahaa waxaan ka saaray naxligii
waxaan u bedelay comedy iyo maad baan u bedelay وبرنامج كلا لها عدوميها مركز عدوميها هبريونس هبريونس أنا كده وسود مية أنا كده يعني اللي حساسي إنه رجوع شري دور شوين كي يوحي حسبية يوحي وانو عاصو دي وانا نحلي بين قلنا صحيح يلا نحلي من قلنا مركز وين بدري وهذا كوميدي كده كوميدي بان كده ماد بان كده هل كي بكسو أفكو أي برامج كاسي إن دبلغ موضة هادلين وريكي ولا مسلحة يقصد يو وسود من يوليه معنا وركدا وتا ورها عالم كله حلي عربيين هبريونس وهرك يقول له عرجميين مركز وإحنا عصا البرنامج كوميدي بان كده ماد بان كده نحلي بان كساري وان صافي waxaan ka dhigay wax iska caadi ba halkaas ku soo afqay runtiina waxaan aaminsanahay inaan gutay waajib dadka aan dhageysta ama igu xiran iga saaran ama qofka soo Soomaaliya wana hadafyadayda marka hore aan wasaasay tooshka siyaasadda ay kamid ahay tani inaan wixii naxliga ka saaro kulay Soomaalida iyo reer Tolkay midna qabyaaladeen maayo shirtirada way soo qabanayaan waxbay soo oranayaan inaan wixii marka ka saara meesha bedelo waa sababtan waasay kamid ahayd waxa jiray barnaamij kaas oo kala oo waxaan filayaa taariikhdu inay ahayd markii uu xubnaa Colonel Dolal oo habar jeclaa waan gartay marka habar jeclaa yar hanjabaysay adigu niman suweer wala siiba Saacad Muuse baa shir jireed ku qabtay Gabley barnaamij telefishinada ka baxay buu ahaa barnaamijka waxa ku jiray erey aan baxay oo ahaa akay dhaxla galo ereygaas oo ahaa aniga ba imika xasuustay colka waraf ma lagu dayay colka waraf ma lagu dayay shimbiro iyo shimbira ku jiray ma barnaamijkaas sheegaysa barnaamijkaas sheegaya barnaamijkaas markuu soo baxay xogaa cunfi buu yar lahaa marka loo eego xilliga uu ku soo beegmay ninkan oo xidhnaa rag badan baana ka cadhoonayay oo iskala warkiiso ma waan gartay barnaamijkii baan u tagay waan duubay niman waraf sita marka qodan Saacad Muuse waxay oranaysaa qaranka shimbiraad ka tii wuxuu ka baxay tiifiyada caadiga loo wada kale waa ogahay wadahay aniga waxa uu telefishin samada hawada ku jirana ma aha wax waan ogahay tiifiya liisan laba siidayay barnaamijka ayaa siidayay barnaamijka waan horano waan daawaday hay adiguna sad uma tashay marka aan ku soo daa haye marka qodan Saacad Muuse waxay qaranka shimbiraad ka tii habar sicay sheegay marka haye shimbirahana anagu waraf baan u samaysanay ko waraf baan qaranka idinka qabanana xabadii ku ridmayno haye barnaamijkaas ku soo baxay yara adigu bal inoo yelmatal adigu imika bilaabay barnaamijkii baan eegay waan daawaday waan dhuuxay barnaamijkii waan soo qaaday waan jilay naxligii baan ka saaray san hore kugu sheegay waan saafay niman habar jeclaa oo yaacaya laba nin oo yaacayo Afrikaan habar jecel ku meteliyay adu saddex nin meelaha niman kale oo iyana waraf yar sito oo saa niman kale oo iyana waraf yar sito oo lee war xasiigta nooca weyn u saar eriyada garanaysa وين حسيتي بعض كلا بحس قمعيدي ان F1 حسيت 36 ها 96 بهد معناها waxa 36 bambada leeyahay F1 ka ayaa ah 36 qumac sidii caadiga marka xasiigti baan ka dhigayaa bam oo waatan de waxa galay yar baa ku dhigsan marka 69 baan ka dhigayaa xasiig 96 u saar baan leeyahay marka limankaas way yaacayaan war deera mool la gali war guriga dahabshiil la gali war ninkii hebel ma nool yahay marka mid saddexaad baa la yar waaya ka yar garanaysa ma lama war ma ninkii balama noola hadaan deera mool galin ma noola dadana uu soo galay habar shalay maxaad iga soo yaacdeen kuwana warf baysa weeriyeen marka sheekadu waxa dhigay bal adigu sheekadii matalaya oo imika codkii wasiideynaya bal ku yar dhufo adigu sida admaada adigu markii qolada reer Gabley shirka shiraaid qabatay ee qaranka shimbiraad ka tii haye shimbiraha anagu warf baan u samaysanay hadaanu shimbira ka baqayno garow ma naan beeraneen boro inkaas warf baanu qaranka idinka difaacnaa haye markaas Taliban baan soo jaray Saad Maxamed in yar oo baan yar ka soo goostay uu leeyahay bal waxaad naga hadlaysaa anaga warf baan dadcana iska hadlow inay garay islaanti waxay tiri dadna maalin leeyahay niman Falastiino warf Saaleban dadna ku soo ayaan ka dhigay Hergabley xur iyo laba Afrikaan oo yaacay هنا وصار حسيت تواوين ترسيقسك كجبا عبدو كجبو قرية داوش اللي قال قرية داوش شاسه أي مركز برامج كوميدي من أول هل كيبور قصو أفضل أي شيء كذا قوة وحيل صو هذين مسؤولة وكم ده مدح قمدية السومال اللي جوا وين مجلس سالك كشيء ما يو وصقر عائلة مركي جرادي وأنكرت ولا صو هذين سوق قصلي وحرادر ورتعض مع سنتهاي وحنا نكرر هبل barnaamijkaas markuu soo baxay suuqyada oo soo saareen dhiikar baan leeyahay aad baan uga carooday buu dhiiga u kacay macaan aad baan uga carooday markaas macnaha waxay uga hadlayaan barnaamijka marka aad duubtay tooshka siyaasadda uu ku soo baxay na waan caafimaaday buu 3 saacadood baan qosli war haye macnaha barnaamijka markii hore aan ka carooday markii aad dib u matashay adigu
aad ka dhigtay de comedy wallahi 3 saacadood baan qoslay buu dhigay waan caafimaaday buu caafimaad baan ka qaaday oo u dhageystay xasiid 96 waa iyo dhiman yaacaya iyo waa manool yahay marka runtii aad baad u mahadsan tahay biguuri barnaamijka dadka inta dheer garadka barnaamijyo fara badan oo noocaas inta badan kuwaan sameeyo dadka inta aragtida dheer waxaan aaminsanahay ama aan ogahay inay ugu soo hambalyeeyaan waa sumcad ahaan karaam ahaan qadarin ahaan dee adigu iminka imaa soo raadiseen soo maaha toosh baday kumaan daba hayeen oo indhaha tooshkaagama sideen marka waxaan aaminsanahay inaan qabyaaladii wanaajiyey oo aan meeshii ka saaray oo aan ka dhigay wax caadiya oo lagu kaftami karo ceeb ahayn naxli hadday kusoo baxda naxligan ka saaro comedy ka dhigo in dadka Soomaaliyeed kaftamaan feedback badan baa igu soo noqday waxa jira hadda reer fara badan oo Soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga oo macnaha aniga igu haystaba ama igu cadhaysanba maxaad anaga reerkayaga ugu soo dirweydi waa su'aashan doonayay marka inaan ku weydiiyo hota ma jiraan reero kugu qabsaday war maxaad anaga reerkayaga aad halkan u keentay amba aad sidaa u tidhi amba aad sidaa u dacaydaysay hota ma jiraan oo ku soo qaraacay oo kugu qabsaday su'aasha haddaan ka jawaabo boqolkiiba 98 maya boqolkiiba 2 weeye waxay qabsada ama isu hanjaba heerkayga noo daa qabyaalad baad ka shaqeysaa walaal qabyaalada kama shaqeeyo wadada galabaan markay ku soo hanjabayaan reerkaaga miyay garanayaan maxaa de waan ku arki doonaa waan ku heli ama heerkayga ka dhamaan laadahay oka afkii reerkiina ku halasa waxba noocaas ku oranayaan laakiin waxaan ku leeyahay boqolkiiba 98 dadku maya qosol keerkan wax ka sheegayo markaas siyaasaddu ku socoto iyo marka hore siyaasaddu ku socotay ayaan bedelay labaduba qosol bay ku daawadaan waan ku nafisaan meel soo gelin marka waxa jira xataa reeray ila soo hadlo yiraahdo anaga reerkayaga watan soo waday reero kula soo hadlaa way jiraan oo adiga imika ii sheegayo adigaaba afkayga ka xaday reero ku dhiman oo warniyo maxaad anagaba noogu soo dar weyday kugu qabsada oo de mataladan aad sameynaysa oo aanad weli ku soo darin imisa reerood ayaa jira oo aad noo sheegi kartaa reeraha Soomaalidu waan gartay ma dhamaanayaan waan ogahay siyaasadda tooshka siyaasadda ama habka uu aasaasan yahay barnaamijkaasina ma aha barnaamij dhamaanaya ama laga xiisa dhacayo waan gartay sababtoo ah wuxuu dhamaanayaa maalinta la waayo reer Soomaaliyeed iyo qabiil Soomaaliyeed oo qabyaalad ka shaqeeya qabyaaladu maalinta dhamaato ayuu tooshka soo dhamaanaya inta kale maanta hore reer bar aan shalay ka hadlay baa saadamo kale soo jawaabaya hadana waan aniga maanta ka hadlaya hadana reer kale soo jawaabaya hadana halkan ka shaqeynta marka qabyaaladu dhamaato reeraha Soomaaliyeed dhamaadaan buu barnaamijkooda dhamaanaya halkii wada dhex gashay way jiraan reero igu qabsada ama ila soo hadlo anaga maxaa reerkayga ugu soo dari waday reer hebel baan la dhahaa noocaasaan oo marka waqooyiga maya arre edeg meel kasta ay ka joogto qof Soomaali uu taagan yahay marka anigu kuma koobno waxay halkan waxaan oran karaa waxaan ahay warbaahinta qudhe madax banaan because halkan Puntland baan gaaraa badan ka talaaba qandar baylaan gaaraa waan ka Kismaayaan tagaa Caliyaalan tagaa Muqdisho dhikeeda Abgaal baan gaaraa waan gartay ogaadiniya oo halkan kale oo Ethiopia oo anigu waxaan dad qof ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhageysato jecel warkiisa gaarsiiyo ama wacyigelintiisa kaftakiisa maadiisa gaarsiiyo marka meel kasta joogan reeraha Soomaaliyeed way jiraan qaar yiraahdo maxaa laga soo hadlay waan gartay marka dalal ku dhimana way jiraan oo soo socda oo dhimka barnaamijyada kale ee ku harsan ay ku jiri doonaan kuwa hore aan ugu jiri Soomaa hadafkayga ugu weyn waan gaaray Soomaalidu laba lahjadood ku hadashaa waan gartay marka hore afka Soomaaligu wuu lahjada badan yahay horta yaa lahjada oo dhan ha uu lahjada badan yahay waa may iyo maxaa tiri oo lahjada badan may iyo maxaa tiri af Soomaaligu marka hore waa labada lahjadood waa ku ogaa waxa kale af guri baa la yiraahdaa marka lahjada maxaa tiriga boqolkiiba 70 waan isla taagay toosh baan isla taagay waan ka hadlay soddonka ay dhiman insha Allah inaan garan jeclahay insha Allah taala waxay soo haray lahjada mayga ee laga hadlo gobolada koonfur galbeed Soomaaliya inaan gaaro luqadooda barto siyaasadooda barto siday u kaftamaan barto xifaaltikooda barto waa ku tala jiraa casharkaas ugu socdaa inaan gaaran jeclahay baya bakool arin barnaamijka tooshka siyaasadana ay ka dhex muuqdaan waan gartay marka ma dhamaanaya hadina way soddon baaba ku dhimanba
inta badan ha inta badan toddobaadkii kale waanu haynaa waa ku dhaweeyay ha oo de xeeb baabay noo harsano xeebta waqooyi baabay noo harsan adigu ciisahana waan gaadhaya waa dad dhaqan Soomaaliyeed dhaqan bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin gabayay leeyihiin suugaan bay leeyihiin xeer bay xitaa leeyihiin aad u adag marka ciisahana aad baan ugu dadaalay inaan gaadho barnaamijkayga gaadhsiiyo kaftankayga gaadhsiiyo wacyigelintayda gaadhsiiyo saaxiibo badan aan ku yeesho aanu saragno insha allah inaadan reerna ahayna waa adiga halkaa ka iftiimiyo de ilma aadan Soomaaliyeed anigu oo Soomaalo dhan u dhaxeeya barkhas Salebaan ha barkhas Salebaan qof Soomaaliya barnaamij karaama istaadi aan ugu talagalay oo aan ugu magac daray oo aan lahaa reeriyan xildhibaankoodu macnaha xisbigu ka soo baxay ka bixin baa gelaya karaamaysnaa macnaha waan gartay waxaa jira xildhibaan anaga jifahaan oo soo baxay marka oo adigu xisbigii ka tigay marka adigu iska kaftan bay ahayd marka adigu xildhibaankaagii ugu tallaabay bax bay ahayd waa kii xisbigii ka baxay uu ka soo baxay marka way heerka iyagu taasaba u dambeysay meyd maxaa u dambeeyay kala siisido reer Xuseen baa tahay ma gelisid garoonka ayaa ugu dambeeyay aad iyo aad waa tahay barkad iyada oo kaftarkii inoo sii soconayo waxaan ku weydiin rabay barkado horta niman madow ayaad ku dul odaysaa oo aad filmaantooda iyo sida isku leedahay markan daabshinna galgaliya waa ka gabo iyo waan cirkaan ugu soo damin SGG-dayaan iyo teeda kalena tii ugu dambeysay aan ku sheegay reerkii waxaa lagaga cunaaday markay heesta seela ee qaadayaan nimanka madow miyaad jeceshahay inaad ka gudubto oo aad marxaladda oo aad u gudubto dad adiga kula mida oo si toosa aad marsaxa intaad u soo istaagto oo live oo aad la jilo oo riwaayadaada toos loo jilo miyaad jeceshahay waad mahadsan tahay waa su-aal runtii aad u miisaan weyn waana su-aal weyn siday tahay baan uga jawaabayaa su-aasha waan gartay anigu afkaartayda waa run waxaan ku gudbiyaa niman Afrikaan ah oo aan adidgooyo deetana aan adigu waxa aan sheegayo u ekaysiyo sababo fara badan oo jira oo tii aan ku sheegay oo kale oo de sida xagga amniga oo kale iyo magaranaysa de qof bulshada ku dhex jiraanahay ayaan horta u isticmaalaa haddii aan waan ku tala jiraa horta inaan Soomaali ama dad Soomaaliyeed oo ila jira barnaamijkan oo aan shaxda u soo dhigo inaan sameeyo koox noocaasa inaan abuuro mustaqbalka insha Allah waan rajeynayaa in dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan wadankan dhulkan Soomaaliyeed jooga afkan ku hadlaya inaan abuuro koox noocaasa oo deetana ay sidaa ku jiraan oo shaxda aan u dhigo oo de waxa la oranaya iyo sida la isugu celinayo aan director bal dhahaa filimkan aan dawano waa la qoraa marka hore waan ogahay dadka wala jila marka inaan wax saas sameeyo laakiin waad ku tala jirtaa ayna waan jeclahay Afrikaanka haweenka aad ma sha Allah aad iyo Allah ku fududeeyo insha Allah Allah ku fududeeyo waan ku ducaynaynaa kulay wax walba oo qabanayso hawl waliba hawsheeda leedahay insha Allah marka gaadho waqtigeeda ama ka dhax arko insha Allah ku marjinayaan sameeyo insha Allah ta'ala markaan iska dhax arko insha Allah insha Allah waad ku tala jirtaa oo wali aad muuqaalaad ka dhigto muuqaalaha leenahay Soomaaliya dadkana ma welino waa ku tala jira Afrikaanka waaye anigu inta ilaa markii aan waxan bilaabay oo imika meelaha ku dhow 1 year meelaha adigu ama 12 bilood iyo ayaamay noqonaysaa aan barnaamijkan bilaabay warbaahin badan baa la soo xidhiidhay magaceeda ma sheegayo laakiin warbaahinta Soomaalida qaar maqala iyo qaar maqal aragaba inay weydiistaan inaan warbixin siiyo barnaamijka igu casuumaan waan ka cudur daartay sababtan horaan kugu sheegay waad ii sheegtay macnaha anigu waxaan ahay qof hawlihiisu iska fara badan yihiin dadkiisa ku dhex jira shaqaysanaya xamaalanaya oo de bulshadiisa doona maraya shaah la cabaya oo qisooyinka ugu faraha badnaa ayaan kala kulmay waxaa kamid ahaa niman culimo waa saawa masii fogeyn oo masaajid iyo meel maxada iyo adigu maamula ayaan dhinacooda saa u fadhiyay warbay ka sheekaysanayeen siyaasadda war maxaa la yidhi markaan nin shiikho aan markaan anigu waan garanayaa in masaajidkii maamulaan iyo maxadadan iyo waxna kalena waa shiikhu waa magarasa markaan warkaas hadduu jiro tooshkii siyaasadda ayaa sheegi doonay balgal janaankii tooshka siyaasadda balgal oo eeg adna waad ag joogtaa waan ag taaganahay ma garanayaa marka waxay leeyihin barnaamijkaasi hadduu jiro uu galay markaa bogagii uu eegay wuxuu ma kuma jiro wuxuu barnaamij hadduu jiro wuu soo gelinaya caawa barnaamijkaasi hadduu jiro meel kaleba nigan ka doonin tooshka siyaasadda ku helinaa sida runtii barnaamijkaasina wuxuu ka markaa dabka ii saaraan waday macnaha dareenkii dadka ama shiikhaada ama shariifaada waxa noqday qof
qof wax loo soo doonto ama dee ma garanaysaa dee war loo soo doonto warbaahin caalami oo kale marka barnaamijka markaa ka sheekeynayaan leeyahay hadduu jiro toosh baa sheegaya ka baadh bogiisa bogiga uu ka waayay bogiga waa barnaamijka markaad arkay saareen doonayaan dubaca oo kale waan gartay marka runtii waxaan arkay in dadku ay aad u xiiseynayaan sidan aan wax wado waxaa jirta inaan horumar fara badan ka sameeyo ayaan rajeynaya insha allah soomaalida dhan inaan wada gaadhaan rajeynaya inaan cid ku xadgudbin sharafteeda iyo cirdigeeda iyo qabiilkeeda waxyaabaha iga mamnuuca waxaa ka mid ah inaan la soo fadhiisan anaa reer hel waa laangaab reer hel waa gun annaga reer hel kalena dheeraysan waxaasi waa iga mamnuuc waxyaabahaasa mamnuuca marka waxaan tooshkaagu qabto siyaasadda sida qalabsan siyaasadda ku dhisan adigu aad ka saarto qabiil ku dhisan yes oo wixii ku bidhi ka dhigo waan gartay marka waxaan aaminsanahay waxyaabo badan waxta la isku dili lahaa inaan qosol ka dhigban marka runtii waxaan rajeynayaa inaan horumar fara badan ku sameeyo aan ballaadhiyo dadka wada gaadhsiiyo insha allah marka kula noocaas ayaan rajeynaya insha allah inaad ka qabato waa tahay barkado inaga oo imikana aynu gabagabadii iyo gunaanadkii aynu u daadegayno bulshada ina daawanaysa ku jirta amba tooshka siyaasadda la socota ee dhageysata iyo maal t v baa daawanaysa maxaad leedahay ood kaga tegaysaa daawadayaasha ku taxan maal t v iyo tooshka siyaasadda waxaan leeyahay halkani waa maal t v iyo tooshka siyaasadda saaxiibayaal intaynu barnaamijkan barnaamijyada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay habeenka iyo maalintuba hayd wanaagsanaadaan waa anigoo ah barka Saleebaan Galaal iyo Maxamed Axmed Xasan Cawke oo idin leh macal salaama waa tahay waayahay waa barka Saleebaan oo maanta aanu ku marti qaadnay halkan aan ku sugannahay ee maal t v barnaamijkan aan ugu magac darnay aan ugu wanqalnayna Cawke iyo Caanka aad iyo aad ayaad barkad u mahadsan tahay barnaamijkan aad inta waqtiga aad nasiisay mar labaad iyo mar saddexaad adaa mudan mee sharaf bay tahay marka hore inaan maal t v aan warbixinta siiyo marka xigtana waxaa sharaf ii ah inaad barnaamijka aad ugu wanqashay Cawke iyo Caanka aad aniga igu daafurto taasina sharaf bay tahay waxaa kaloo sharaf weyn ii ah oo weliba aan soo koobi karin in adiga oo Maxamed Axmed Xasan Cawke ah wariyihii weynaa Soomaaliyeed ku dhalay aad iga qaado wareysigii u horeeyay abid aan siiyo warbaahin واسوعان taasina sharaf weyn bay tahay anigu ba laftigaygu waxaan raadinayn in aan wali hore muuqaalka inkastoo imika aan anigu aan ku cusubahay way aad iyo aad ayaad mahadsan tahay warqad aad baad u mahadsan tahay sida waqtiga le aad noo siisay aad barnaamijka nooga qayb qaadatay horta jazakallah khayr iyo sida aad anigaba aad iga ogolaatay in aan maanta tooshka indhaha kaaga shido aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa